السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا جبهتين به مال والبوات شوكتان يسوى البودي مغلسان با ولا لها سوماليات. حندونا يا دور قضب وكل دون إن المنطقة كهالله كو وحنكهال دونا أرماها قبل كجدو محاك عصب جدجي ربله يبقى نام بحية كسعودة قبل كجدو وربحين بعدين كجهيا. وعنك لو كهال دونا دجالك ودحية مدحوين كحجينك مامور قبلت كهرشبيله iyo madaxweynaha maamulkaasi Cali Goodlawe oo asna runtii meel qatar maraya muxuu ku saabsan yahay iyo dagaal ka dhacay maanta xeerada ay degan yihiin labadaas hogaamiye waxaan kaloo ka hadli doonaa finally ayaduna arrin aan isleeyahay waa muhiim inaynu fahanno waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Cali Goodlawe qorqor iyo farmaajo sida ay u soo baxayaan xildhibaanada iyo qaabka ay u maareynayaan labadaas maamul goboleed dadka qayb badan oo kala duwan waxay u dhigayaan ama ay u fahmayaan in ay balantii oga baxeen ama xiriirkii siyaasiga ay ka dhaxeeyay saddexdaas siyaasi inuu meesha ka baxay arrimaha la midka waxaan rabaa ayadaasna bal inaan clear gareeyo oo intii aan aragti ahaan iyo xog ahaan aan ka hayo bal aan ku soo gudbiyo muuqaalkan soo dhawaada intaas oo qodob ayaan maanta ka hadli doonaa haddii aan ku bilaabo arrinta gobolka Gado ka taagan iyo sida Roble iyo Axmed Madoobe ay runtii u marin habaabinayaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka shacabka ee reer Gado waa arrin runtii aad la yaab u leh weeye haddii aan dib ugu laabto dhowr meelood oo important ah inaynu kala socono arrinta ama aynu ka xasuusnaano waxa kamid ah Roble iyo Axmed Madoobe runtii waxyaalo badan ayaysan heshiis ku ahayn oo ku saabsan sida ay doonayaan in loo maareeyo 16 kursi ee magaalada yaala Roble waxyaalo badan uu doonayo ayuusan Axmed Madoobe doonaynin halka waxyaalo Axmed doonayna isna uusan Roble doonaynin waxa kaloo jira ayaduna waa la qarin karinin inay jiraan waxyaalo ay ku midaysan yihiin labadaas nin oo kuraastaasi iyo doorashada Garbaare ku saabsan waxa kamid ah koow in Garbaare doorashada laga wareejiyo labo in kuraastaasi laga bixiyo gacanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si markaasi asaga aysan ugu dhicinin accountkiisa waxa kaloo ayadana jira ayadana laga maarmaana inaynu xasuusnaano Saciid Cabdullaahi Dani asaguna qayb buu ka yahay arrinta gobolka Gado ka socota iyo doorashada la doonayo in laga wareejiyo gobolkaasi iyo waxyaalahaani qayb buu ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani waxa jira xogaan hayo oo xaqiijinaya in Saciid Dani uu Roblena la hadlo Madoobena kala hadlo labaduba uu kala hadlo arrimaha gobolka Gado waliba asbuuci la soo dhaafay uu siyaabo kala duwan oo la hadlay ayaan hayaa guddigan cusub oo uu magacaabay Roble oo ay diideen reer Gado iyo reer Garbahareyba waxaan u arkaa inuu yahay guddi haddii la yeelo iyo haddii la diidaba aan marnaba wax doorasho ah uu ka qaban karo Gado aysan jirinin sababaha ugu badan oo saa u leeyahay waxay tahay guddigu ma aha guddi waafaqsan heshiisyadii dalka sidaa daraadeed wax walba oo aan waafaqsanayn heshiisyadii dalka waxaan hubaa waxa ay keeni karaan inay noqoto inay doorashadu daahdo iyo jahwareer wixii lagu heshiiyay baa la dhaqaajin laayahay waxaan lagu heshiinin waxa ka iman kara ma garanay waxay yihiin wuxuu Roble wadaa oo mashquul ku yahay 40 saacadood la soo dhaafin oo siyaabo kala duwan uu sameeyay uu isku dayaa inuu kala jajabiyo maamulka gobolkaasi Gado iyo dadka ugaasiyada iyo waxgaradka siyaabo kala duwan oo la hadlay odayaal dhaqameedyo iyo ugaasiyo gobolka Gado jooga isagoo markaasi doonaya inuu ku qanciyo in nimanka nabadoonnada ay soo dhaweeyaan guddigaasna uu yimaado halka ay maamulkii diideen waa arrin aad arkayso marka runtii waxa ka jira waxaan rabaa in halkan oga diro baaq runtii iyo talo ugaaska beesha Baraxaan ee gobolkaasi Gado jooga khaasatan magaalada Garbaharey sababtaan ugu dirayana waxay tahay sidaan islaahay waxa weeye ugaaska iyo nabadoonnadaba doorka ay siyaasadda ku leeyihiin waa soo xulida ergada iyo arrimaha la midka kuma laha heshiis iyo inay Roble la hadlaan iyo inay arrimo doorasho kala hadlaan iyo inuu asagu kala hadlo arrimo doorasho shaqadooda may ah waxa shaqadaasi iska leh maamulka midka gobolka iyo midka degmada ayaa iska leh markii doorashadu ay Garbaharey timaado oo la xulayo ergada oo la kala shaandhaynayo qabaa'ilka ayuu nabadoonka iyo ugaasku shaqo ku leeyahay laakiin siyaasi ma aha ugaasku nabadoonkuna siyaasi ma aha odayaasha uu Roble la hadlayo waxaan kula talin lahaa inay uga dambeeyaan maamulka meesha ka jira siyaasadda iyo halka wax loo jahaynayo iyo heshiisyada iyo arrimahaasi marka ay doorkooda timaado ka qaataan qaybtooda laakiin aysan hor dhicin waayaga talo haddii sidaa la sameyn waayo inay meeshaasi ka imaan doonto isgarabyaa aan wanaagsanayn ban huba
dadka qaar ayaa aaminsan ama leh maxaa ku jaban haddii ay guddigaani yimaadaan Garbaharey isla markaasna ay la shiraan dadka maxaa la yiraahdaa meesha degan iyo odayaasha iyo dhaqanka iyo maamulka inay la shiraan isla markaasna ay arkaan waxa ay wadaan maxaa ku jaban su'aal noocaay ayaa jirta oo dadka qayb badan oo kamid ay siyaabo kala duwan ay u soo boosti garanayaan waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale guddigan horta la shirayo xagee buu ka soo galaya heshiisyada doorashada su'aasha hadaan la fahminin ma lama fahmi karayo in guddigan la fariistay in kaleeto haddii ay heshiiska ku jirinin in la fariistaa maxaa ka imaanaya tusaale oo kale haddii caawa Siciid Dani oo Puntland ka imaada ee reer Garbaharey kala fariistaan hanaanka doorashada u qabsanayaan ma doorasho gaarsiinaya maya waxa imaanaysa tusaale oo kale de xagee Siciid Dani ka soo galaya in asaga laga heshiiyo doorashada Garbaharey markaysa waxaan ka wadaa doorashada Garbaharey waxay u baahan tahay dadkii munaasibka u ahaa in laga fariistay u baahan tahay guddigan marka ma aha guddiga laga fariisan lahaa way u baahan yihiin inay la xaajoodaan ra'iisul wasaaraha way u baahan yihiin in guddigii hore ay la xaajoodaan way u baahan yihiin in guddiga doorashada ay la fariistaan laakiin uma baahna guddi aan heshiisyada ku jirin la fariistaan haday sidaas sameeyaanna waxa ka soo baxay waa la qiyaasi karayaa markaysan waa arinta inay sii fogaato iyo in guddigaasi muran u dhaliyo waxa uu ka soo baxo in la diido in heshiiskii hore muran la geliyo way sii adkaanaysaa the case complicated buu sii noqonaya waa aragtayda way haddii reer Gado markaa iyo Rooble iyo Axmed Madoobe ay heshiin waayaan waxa hadda isku hayaa ay heshiis la'aan ku soo dhacdo 15 bishan la gaaro xagee doorashada Gado sidee loo qaban doonaa waa cabsida ugu weyn iyo su'aasha ugu weyn isku weydiinayaan waxaan rabaa inaan aragtayda ku kabo iyo sida aniga ay la tahay markaan meel badan ka fiiriyay aragtayda waxay la tahay haddii 15 bisha la dhaafo bishaan ay dhamaato wixii ka dambeeya in Rooble iyo Axmed Madoobe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira oo dhan cidii aan doorashada dhamaynin uma malaynayo wixii bishaan ka dambeeya inay jaanis dambe u leeyihiin inay doorashaan qabanayna inay yiraahdaan xaq uma laha waayo waa jadwalkii shanaad oo fashilmaya way markaysa haddii marka ay qaban waayeen waxa madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mas'uul ooga dhigay Rooble inuu doorashada asagu uu qabto waxa madaxweynaha dusha ka saaran oo qasab ku noqonaya inuu madaxweynaha soo fargeliyo arrintaani isla markaasna 16 kursi ee Garbaharey taala waa inuu madaxweynuhu ka shaqeeyo qaabka doorashada u dhicay waa haddii Axmed Madoobe iyo Rooble ay qaban waayaan ayagoo raacaya heshiisyada dalka markaysa Rooble amaana loo dhiibay way doorashada dalka hadduu qaban waayay marka oo uu ku fashilmay oo uu ku celiyo oo jadwalkii ugu dambeeyo 15 uu Garbaharey doorashada looga qaban waayo ayaduna ay ka soo harto madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu soo saaro dekreeto waxaan aaminsanahay marka ugu dambaysa dekreeto ka soo baxday filan Soomaaliya iyo guddiga halka uu ka soo dhisay madaxweynuhu inay kuraasta qaban doonaan baan aaminsanahay waa haddii lagu heshiin waayo ayadoo raaciyo heshiisyada markaysa waa halka ugu dhow waa la sameyn karaa technically dad badan oo farsamo yaqaaniin ah oo la hadlay siyaabo kala duwan oo fudud bay u dhigayaan qaabka ugu fudud waxa weeye in 10 xubnood oo seat ah oo reer Gado ah la sameeyo hal asbuuc oo tabaran loo furo isla markaasna lagu daro guddiga fit maxaa la yiraahdaa federaalka iyo khilaafaadka qaybo kamid ah inta dal isku daro ilaa 16 kursi qabta intaas ku filan Axmed Madoobe loo baahna Rooble loo baahna dadka gudaha degana la yiraahdo ergadiina iyo musharaxiinta la imaada doorashada la soo gabagabeeyo intaas ay u baahanta marka waa la qaban doonaa waa haddii ayagu marka ay qaban waayaan ayagoo raacay heshiisyada waa sida la tahay intaas aan uga baxay qodobkaasi waxaan u galo Hiiraan iyo Beledweyne inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay saakayto dagaal xabad ah oo ka dhacay magaaladaasi Beledweyne xero la yiraahdo lama galay oo xerada ay wada degan yihiin ba maamulka waxa ku dhex yaala xeradaasi madaxtooyada Hirshabeelle waxa kale ku yaala xafiiska maamulka gobolka Hiiraan waxa kale ku yaala ama gudaha ugu jiro deganba xildhibaano xilal raadinaya iyo kuwa hore xilka ka dagay iyo kuwa la baxay inay markaas isbedel doon yihiin waxa yoo dhan ayaa xerada wada degan waxaana ka buuxa ciidamo kala duwan oo dad kala duwan markaa kala arqaata xabadii saaka meesha ka dhacday dadku siyaabo kala duwan ayay u kala dhigayaan qaar waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha ciidamadooda ayaa isxabadeeyay qaar waxay leeyihiin xildhibaanada xilalka raadinaya iyo kuwa maamulka ayaa isxabadeeyay laakiin israsaasayn aan muddo badan socon ayaa ka dhacday laba askari baan ku dhimatay maadaama meesha ciidan badan
ay ku jireen saddex kalena way ku dhimatay inta marka wixii meesha ka dhacay ilaa hadda marka ma aan hayo waan raadiyay laakiin cidda ay labadaas askar isxaabadaysay ay kala socdeen ilaa hadda runtii la yima xaqiijinin wayna qarinayaan maamulka Hirshabelle wayna diideen shaaciyaan waxaan ugu marka waa maxay khilaafka ka dhaxeeya dabageed iyo cali guudlaawe waxaan ognahay in 48 saac la soo dhaafay labada masuul runtii ka dhax jiray khilaaf aad iyo aad u adag oo meelo badan oo kala duwan gaaray sidaan xogo lagu kala soo yahay aan ku helay wuxuu khilaafkaani ka yimid koow iyo tobanka kursi ku hartay magaaladaasi Beledweyne sidii loo maareyn lahaa bay labada masuul isku hayaan waxay ugu sheegayaan in cali guudlaawe uu rabo inuu kuraasta wax ka siiyo rag mucaarad qayb ka mid ah oo uu ka mid yahay Goodax Barre iyo Sanbaloshe walow dadka qayb ay leeyihiin ninka uu rabo inuu xilka siiyo waa Goodax Barre ee Sanbaloshe ma aha laakiin niman ka mid ah labada nin ayuu doonayaa inuu xil siiyo ama uu xildhibaan qaato cali guudlaawe halka dabageed uu diidan yahay in kursi la siiyo Goodax Barre oo ay muddo badan is hayeen warbaahintana ay iska caayeen marka khilaafka marka labada nin u dhaxeeyo waxa weeye waa Sanbaloshe iyo in kala yiraahdo iyo Goodax Barre xildhibaan hala siiyo iyo lama siinayo waxay dadka xoog ogaalka ah ee arintaani sida hoose oo la socda ay xaqiijiyeen in kuraasta ay isku hayaan labada masuul 12 markii la fiiriyo inay saddex kuraas yihiin ugu badnaan ama laba kuraas ay yihiin waxa ay soo isku hayaan laakiin ay yihiin dadka la siinaya la isku hayaa inta badan waxay dadku leeyihiin dabageed raalli buu ku yahay in labada inta meesha laga saaro kuraasta la furo xataa dadka hala siiyo laakiin dabageed wuxuu diidan yahay in Sanbaloshe indika kursi in kuraasta la siiyo waliba iyo Goodax Barre ninka uu sida weyn ugu dhagan yahay waa Goodax Barre halka ninkan kale uu leeyahay nimanka odayaasha iska sii daayo kuraasta ha qaataan waa sida aan xogaha ku helayo weyn marka waxa isku hayaan waa sida xaaladdu waxay galeen shir labada masuul muddo badan bay fadhiyeen laakiin wax heshiis kama aysan gaarin waxa la filayaa in caawa marka la fariistaan oo arrintaas ay ka heshiiyaan walow maanta xataa uu dagaal dhacay waa rajeynaya marka in labada nin masuuliyiinta ah ay ku laabtaan haddii ay qaar sii deyn karaan nimankaan qaar la sii daayo si ummadda iyo xasiloonida maamulka iyo deegaankaba marka loo badbaadiyo wax macna samayn mayso Goodax Barre iyo Sanbaloshe awalba xildhibaanadana waa ku jireen meesha beelaha ka qaqaylayeen haddii hadda kuraas la siiyana ma umaleynaya hadda inay cid wax oga yaraanayso marka anigu shakhsiyan waxaan dhihi lahaa wixii la sii deyn karo oo qabqabla ah la iska sii daayaa oran lahaa kulli shakhsiyan taa waa halka intaasaan oga baxaya wixii ka soo baxana kulli insha Allah taala waa arki doonaa aan rabaa inaan u galo finally qodobka ugu dambeeya oo islaahay waa qodobka ugu muhiimsanba waana doonayna maanta inaan halkan ku la fagurno qorqor iyo cali guudlaawe iyo maxamed cabdullaahi farmaajo saaxiibkood sida ay maalmahan dambe waxa uga soo baxayaan xildhibaanada labadaas maamul dadka qayb badan oo kamid ah runtii dhaliil badan bay ka muujinayaan khaasatan dadka dawladda sida weyn u taageersan waxay leeyihiin dadka duwan oo su'aalo soo gaaraya ah ninka qorqoraha miyuu balanta ka baxay cali guudlaawe miyuu qorqor ku dayday iyo waxaas ku sheekanayaan aragtida markii aan arintan aan runtii ku celceliyo oo aan isku dayo inaan si degan oo cadiifad iyo emotion aan ahayn aan u fiiriyo runtii uma arko inay wax mashaakil meesha ay ka jiraan iyo wax khilaafaada iyo sabab ay isugu dhacaan anigu runtii iimaan muuqato dadku waxay leeyihiin marka intooda ugu badan abaalkii farmaajo nimankan u galay muusan gudunin waayo xildhibaano mucaarad ayay soo saarayaan labadaba meelo kamid ah walow ay kuraas badan u soo bixiyeen haddana maysan ahayn in mucaarad u soo bixiyaan bay leeyihiin dadka sidaa leh waa dad aan siyaasadda aan fahmin waa dad aan fahmi karin xiriirka siyaasiyadda nimanka siyaasiyiinta xiriir ka dhaxeeya iyo qaabka loo naqaasho iyo negotiationka la samaysto qaabka loo galo wadaan fahansanan weeye qorqor iyo cali guudlaawe waxay isku wadaan dhowr arrimood san ka arko waana muhiim dalkay muhiim u tahay xilkooday muhiim u tahay dawladday muhiim u tahay deegaanada muhiim bay u tahay markaysa ayaga isku wadaan marka waxa kamid ah oo muhiim ah inay isku wadaan si ayaguna ay wax u helaan dadka kale ee ku xiran ee la shaqeeya ee saaxiibadan ku helaan waxa kamid ah ayaga isku wadaan waxay wadaan inay farmaajo xiriirkiisa ay uu sii socdo ay saaxiib la ahaadaan bay doonayaan waa mid koobaad waxay kala doonayaan in maamulka ama maamulada ay madaxweynayaasha ay ka yihiinna uu sii shaqeeyana way doonayaan waxay kala doonayaan in beelahooda xiriirka kala dhaxeeyana
wanaagsanada ay doonayaan waa saddex category oo ay adag tahay in midna la tuuro markaysa farmaajo inay tuuro way ku adag tahay in maamulkoodu burburan way ku adag tahay inta wax walba farmaajo loo boobo oo qabaa'iladu kacaan oo la dagaalamo oo dhibaato dhacdo oo maamulkii uu qulub galana kama sabaqsan dhibaato ku tahay in reerahooda iyo dadkooda iyo qaraabada ay ka wajin dhintaan dhibaato ku tahay ma jiro nin Soomaaliya maanta doonaya in reerkiisa ka wajigo oo nin kale uga wajigo nin doonaya ma jiro arkaysa dadka Soomaalida ah oo dadka reernimada ay si weyn agtooda ay wax uga tahay nin walbana qaraabo iyo ehel u baahan yahay iska caadi marka waxay iswaafajinayaan marka in farmaajada saaxiib la ahaadaan maamulkoodu shaqeeyo reerahooda iyo qabaa'iladoodana aysan ka wajin dhimanin ee noqon karaan in wax ka sii markaysa marka ninka ragga waa loogu garaaba cali gudlaawe iyo qorqor inta shaqo fiican bay qabanayaan inay marka qaarkood mucaarad siiyaan inay marka qaarkood kuraasta qaar la furo in saaxiibkooda wax siiyaan in hadba sida ay wax u sameyn karaan wax loo sameeyo waa qaab aan isleeyahay waa very important dalku uu wanaagsan yahay ayagu uu wanaagsan yahay maamulku uu wanaagsan yahay dawladda naftirkeeda uu wanaagsan yahay ma aha siyaasad fiican in kursi walba farmaajo loo boobo oo malanay inay siyaasad fiican tahay waynu u baahanahay rag mucaarada waynu u baahanahay rag aynu murano siyaasaddu haduusan mucaarad ku jirinin rag qayli hadiisa ku jirinin siyaasaddu macaan ma sameynayso rag naga fikir duwan oo aynu daacayno oo aynu qalaadkooda soo saarno oo aynu ka daba keeno annagana waa u baahanahay ayaguna way u baahan yihiin rag ka fikir duwan yihiin siyaasaddu waa iswareegtaa haddii berri ragga naga reer nabadii nolol dhan kale u wareegto in la aamusimiyaan doonina maya marka qaarkood siyaasaddu waxaa laga fiiriyaa masaalixda dalka qofkii ka hormaanay meesheeda laakiin la kala fikir duwanaado oo mucaarad la soo saaro oo la challenge gareeyo oo awood dalka la qaybsado oo ragga wax laga siiyo oo marka qaarkood masaalix jirto oo shaqeynaysa laakiin haddii wax walbaba hal qaata la yiraahdo wax dhuntaada ka weyn waxa maqli jiray haddii wax dhuntaada ka weyn aad laqdo dee dhuntaada way dilaacinayaan marka haddii waxba faraajaha loo boobo la yiraahdo doorasho ma soconayso markaysa waa in marka dadka kuraasta qabaa'ilada qaybo ayaga loo daayo odayaashooda oo hadday ninka qabla saaranayaan ayaga loo daayo kii laga qaadi karo laga habeyn karo laga habeeyo kii la tartami karo on open loo geli karo loo galo in wax la isku wado masaalix jirta way waxaan kusoo koobayaa finally kursiga ubax taaliil id ogeydeen maandhow sidoo ahaa baan doonaya inaan meel yar idinka tuso sida wax loo kala badbaadin karayo iyo muhiimadda ay leedahay ubax taaliil kursigeeda beesha iska leh way diiday markii hore in kursigooda qoondaha haween laga dhigo waxay yiraahdeen kursiga naga qoondaha haween lagama dhigayo maadaama kuraasti qoondaha haweenka sanadkan intooda ugu badan laga bedelayay waa in kursiga naga laga bedela ay yiraahdeen qorqor uu dhaga adeegay qoonda dumar buu ayuu ku celiyay buuq badan buuna kala kulma ka waran marka nimankii inta marka hore yiri qoonda dumar yaan laga dhigi oo laga dhigay haddana in la yiraahdo kursigiin waa la siixirayaa markaysa runtii arrin fiican ma aha arrin cadaalad ma aha gabar kale yar aqso baxay tartan furan buu ahaa nasiibkeeda cunta ubax taaliilna gaar fiican oo jeclan bay ahayd kale ayaduna hadduu madaxweynuhu soo laabto I hope and I wish in kursi kale oo iyo xil ka fiican ay heli doonto markaysa gabadha soo baxayna gabar Soomaaliyeed way wal arkayay qaabab kala duwan ay dadku ay u wadwadeen video ay leedahay kor loo qaadayay in la wadwadaan islaahay muhiim ma isla maarif fiican ma aha laakiin haddaba gabar Soomaaliyeed si caadi ku soo baxday fikirkeeda leedahay hal lagu taageero waxay aaminsan tahay markaysa marka waa arrin wanaagsan in wax la isku wadaa in wax walba farmaajo loo boobo iyo in wax walba la sameeyo doorashadu socon mayso ayadoo wax la kala basrinayo bay wax socon laayihiin Soomaalidu waa dad wada sensitive waa dad wada qabyaaladu ay ka buuxdo waa dad bislaynda waa dad aan siyaasad aqoon way marka in wax la kala basriyo waa sida lagu wadi karo waana sida inoogu badiso intaas aan ku soo koobaya intaan dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay nabadino assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh